Ama calaykum maanta muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa mar allaale markaa rabtid keyboardkaaga inaad wax ku qortid oo rabtid qof inaad fariin u dirtid fariintaas ay isbedesho oo wax kale ay noqdo qoraalkaas qoraal kale uu noqdo. Haddaba ciladan haddii ay ku qabsatay sidee la iskaga xalliyaa ciladan ama la iskaga xidhaa ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkeena. Ciladuna waa sida marka wax allaale wax aad rabtid aad qortid wixii aad rabtid inaad qof aad rabtid inaad u dirtid wixii ay noqdaan wax kaleeto oo ay isbedelaan. Sidaas darteed haddaba see la iskaga xidhi karaa ayaa maanta muuqaalkeena kaga hadlaynaa. Okay, waxaad tagaysaa settingka keyboardkaaga tagaysaa. Settingka dadka qaarkood intuu u yaala banaanka u yaala haddii banaanka u oolin adi 3 dhibcood halka ka muuqdo halkaas markuu saari doonaa. Dadka qaar 3 dhibcood buu u galaa, dadka qaarna halkaan u galaa, dadka qaarna intaan ayuu u galaa. Marka adi settingka keyboardkaaga baa raadinaysaa muhiimada. Okay, ana keygi banaankaas u yaala waa ku dhuftay keygi. Okay, markaa ku dhufatid kadib waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay predictive text. Okay, marka halka aad ku dhufatid halkaas leeyahay intan baa iska xidhaysaa. Marka halka aad iska xirtid wax qoraal ah oo ka daba qormi doon ama qoraal aad qorto isbedelaya ma jirto. Okay dheh kadibna u soo noqo kadibna keyboardkaaga isku day inaad wax qortid. Waa kaas waa intaas.